gurigii kabaha waxa uu ka samaysan yahay saad u jeedaan kabaha ragga xirtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan idin haynaa waxaa naga xasuusinaa intaanan u gelin barnaamijkeena layaabka dunida. Haddaad ku cusub tahay channelka Warsan, subscribe dhe hana ka ilaawin gambaleelka inaad furato, videogana share garee, sidoo kale like saar. Wixii aad rabto inaad wax ka ogaato si aan barnaamijyadeena aan ugu soo qaadano, qaybteena comments-ka noogu reeb. Mahadsanid. Gurigii kabaha jacaylka saad u jeedaan gurigan ayaa ka samaysan yahay kabaha ay xirtaan ragga inta badan. Guriga kabaha waxaa la dhisay 1948 waxa uu ku yaalaa magaalada Maqluwezi. Guriga kabaha waa guri dadka degan ay aad ula dhaceen, waxaana la sheegay in ay xayisiis ku samaystaan dadka kabaha ka ganacsadaan maadaama uu gurigan kabo ka samaysan yahay. Gurigii farshaxanka. Gurigan waxaa la yiraahdaa gurigii farshaxanka. Waxa ku nool famil iyo labadooda caruur. Waxa gurigan u soo dalxiis tago inta badan ardayda joogta dalal kala duwan. Wuxuu ku yaalaa dalka Mexico, isagoo la sheegay in fikirkii samayntiisu lahaa nin u dhashay dalka Mexico. Gurigan waxa uu ka samaysan yahay waxyaabo organic ah oo badda laga soo saaray. 3. gurigan asna waxaa la yiraahdaa gurigii u samaysnaa kala gediska. Guriyaha caadiga waa uu ka duwan yahay. Waxa uu madaxiisa jiraa hoos, meesha hoosana kor ayuu jiraa. Wuxuu ku yaalaa dalka Poland. Waxa uu soo dalxiis tago sanadkiiba dad badan oo cajiib la tahay guriga sida uu u samaysan yahay. Dadka qaar ayaa la sheegay inay rumaysan guri noocaan u samaysan ayagoo u haysto guri dumay ilaa ay gudaha u galaan oo ay indhahooda u soo arkaan. Dhismaha gurigan ayaa waxaa la sheegay inuu qaatay 114 maalin. 4. guriga geedka. Gurigan waxa uu asaga dhan ka samaysan yahay geedo banaanka laga soo jaray. Waxa uu ku yaalaa dalka Nepal, waxaana fikirka guriga ka yimi nin u dhashay isla dalka Nepal. Uu la soo degay xaaskiisa iyo 2 caruur uu dhalay. Kadib marka uu dhameeyay dhismaha guriga, waa guri cajiiba, dad badan ay aad ula yaabeen qaabka loola yimi in la dhiso guri geedo ka samaysan. Dhismihiisa ayaa qaatay ilaa 2 bil in lagu dhameystiro, asagoo dhismihiisa qaatay qarash gaaraya ilaa $300. Qoyska guriga geedka dhistay ee degay ayay sheegeen inay aad uga faraxsan yihiin gurigooda cusub, isla markaana ay aad u quruxsadeen. 5. guriga labada dhagax. Gurigan waxaa la dhisay 1974. Gurigan waxa uu ku yaalaa dalka Talyaaniga. Inta badan gurigan waxaa la tagaa xilliyada qabowga jiro. Gurigan waxaana la sheegay inay wax walba u dhameystiran yihiin, xitaa leh meelo lagu nasto iyo meelo lagu dabaasho. Qof walba oo Talyaaniga degan waxa uu jecel yahay inuu ugu yaraan gurigaasi hal habeen uu seexdo. 6. guriga diyaaradda. Gurigan waxaa loo sameeyay sidii diyaarad inay hawada gasho la doonayo oo kale. 50 qol ka badan ayuu ka kooban yahay. Gurigan waa loo soo dalxiis tagaa iyadoo habeenkii lagu seexdo ilaa $2,000 Mareykanka. Guriga diyaaradda waa guri ay u dhameystiran yihiin dhammaan agabkiisa. Markaad rabto inaad jaranjarada fuusho, waxaa lagu furayaa remote-ka oo si kale kuma shaqeynayo. Aad bay dadku jecel yihiin inay u dalxiisaan gurigan diyaaradda ah, waliba aad qaali u ah kiradiisa. 7. guri loogu magac daray nolosha waa safar oo ka samaysan gaari. saad u jeedaan gurigan nin ayaa u dhistay xaaskiisa iyo caruurtiisa ay ku nool yihiin, asagoo sheegay inay waqti dheer ku qaadatay inuu gurigan dhiso. 8. gurigii nolosha waa hees. Gurigan waxaa ka samaysan yahay gitaarad iyo piano. Waxa uu ku yaalaa dalka China, waana guri waqti badan uu ku baxay si loo dhiso. Sanadii 2007 ayaa la sheegay in dhismihiisa la dhameystiray. Maanta barnaamijkii aan ku eegaynay layaabka dunida oo aan ku bartilmaameysanaynay dhismayaasha ugu layaabka badan dunida, halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa. Intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah, waxaan iga tagaynaa isma dhaafina amaana Allah. Waxaa naga xasuusinaa inaad subscribe saarto si aad ugu mid noqoto saaxiibka dhow ee Warsan Media. Wixii tali tusaale ah qaybteena comments-ka noogu reeb.